waftigii ballaarnaa ee uu hogaaminayay madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanye ee muddooyinkii ugu dambeeyay socdaalka xogaal noqoshada xaaladda abaaraha ku maraya gobolada bariga Soomaaliland intooda badan ayaa galay maalintii sideedaad taasoo ujeedada safarka madaxweynaha Soomaaliland ay salka ku hayso gurmadka caawinta taakulaynta ka warkeenida xaaladda dhabta ee abaarta iyo sidii ay xukuumadda Soomaaliland ee uu hogaamiyaha ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud ay door muuqda uga qaadan lahayd samata bixinta bulshada kala duwan ee Soomaaliland ee abaaruhu ay waxyeeleeyaan waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland intii uu socdaalkiisa uu ku guda jiray uu xog wareysanayay dadka abaaruhu sida ay u waxyeeleeyaan mudane Axmed Maxamed Silaanye madaxweynaha Soomaaliland iyo waftiga uu horkacayay oo labadii habeen ee ugu dambeeyay oo hoyday magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Cerigabo ayaa saaka aroornimadii ka soo kici timay waxaana madaxweynuhu uu soo kormeeray intii uu jidka ku soo jiray dhismaha wadada ballaadhan ee isku xidha gobolada Togdheer iyo Sanaag looguna magac daray Siiraayin Road taasoo ay gacanta ku hayso wasaaradda uu hogaamiyaha ka yahay mudane Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan waxaana uu jidkaasi marayaa haatan meel aad u fiican oo rajo fiican gelisay bulshada ay wadadaas marinka u tahay oo ugu horeeyaan bulshada reer Sanaag oo muddo dheer naawilay sidii wadadaasi ay maroon indhahooda ugu arki lahaayeen iyadoo dhammaada kumanaan ka mid ah shacabka ku dhaqan degmada taariikhiga ee Gar-adag ayaa madaxweynaha Soomaaliland iyo waftigiisa iyagana ku qaabilay soo dhaweyn aad u diiran oo aanay u kala hadhin taasoo soo dhaweyntoodu ay ka muuqatay taageerada muggale ee ay u hayaan madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanye iyo xukuumadda uu hogaamiyo munaasabad kooban oo lagu qabtay geedka caanka ee degmada Gar-adag ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftigiisu ay kala qayb galeen dadweynaha ku dhaqan degmadaasi waxaana ugu horeynba munaasabadaasi oo ahayd mid si fiican loo soo agaasimay ka hadlay mayrka degmada iyo cuqaal ka tirsan degmadaasi kuwaasoo madaxweynaha Soomaaliland iyo waftigiisa ku soo dhaweeyay waxaanay mid u sharaxeen waxqabadka uu ka hirgeliyay degmada Gar-adag wasiirada wasaaradaha maaliyadda Marwo Samsam Cabdi Aadan iyo howlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka Soomaaliland mudane Cali Xasan Maxamed oo halkaasi ka hadlay ayaa iyaguna waxa ay sharaxeen ujeedada safarka madaxweynaha Soomaaliland waxaan u soconay si aad la socotaan imika bishan oo dhan abaaraha ka dhacay gobolada bariga oo markii horena galbeedka ugu horeeyay imikana bariga aad ugu habsaday ayuu madaxweynaha iyo waftiga uu hogaaminaya ay indheynayeen meelaha ay wax ka qaban karaan iyo dadka dhibaatada soo gaadhay inay la qaybsadaan dhibaatooyinka haysta runtii dhul badan baan soo marnay oo abaar aad u adag ay ka jirto wixii laga qaban karayay waa laga qabtay waxaan u malaynayaa raashinkii iyo hawlihii la waday intaa kolley way soo gaadheen Gar-adag waftiga intii abaaraha taakulaynta abaaraha u socotay way soo marayaan waxay nagaga hadheen Cerigabo inta iyada soo raacday madaxweynaha waxaanu runtii doonaynay inaanu sii eegno meel walba baahiday leedahay waxa weeyaan markii abaartii hore galbeedku dhacday madaxweynuhu wuxuu amar ku bixiyay in biyo la qodo oo riigad badan la qodo imika riigagii bariga laga qoday in badan sanad ama dhowr bilood ayay socdaan wuxuu imika madaxweynuhu amar ku bixiyay in meel survey rasmi la sameeyo oo la ogyahay biyaha intay jiraan oo riiga qodaya mid la awooda inuu biyaha soo saari karo la eego oo meesha marka baahideeda la arko riiga loo soo diro maaha riig meel uu laga soo kaxaysanayo oo sanad dul fadhiyaya oo qandaraas uu la iskaga bixinayo waxa weeyaan ummadda in biyo rasmi loo helo oo biyo anfaca loo helo oo aynan ka fakirin qofka qandaraaska helaya iyo biyaha ayaa ka faa'iideysan riiga qodaya maxaa laga faa'iideysanayaa ee aynu ka fakirno biyahaasu ma yihiin meel biyo laga helayo biyo ummadda anfici kara taasaana marka macluumaadka la ururiyo dib loo fadhiisanayaa la qorsheynayaa sidii wax loo qaban lahaa sidii loo diyaargaroobi lahaa waxaana kolleyba muhiima dadka muwaadiniinta ah reer Soomaaliland in loo abaabulo inay iskaalmeeyaan oo wax isku taraan dad badan baa dibadda inaga jira dad badan baa wax haysta dad badan baa dhaqaale haysta
marka in qoysasku iska faalo qaataan oo is abaabulaan oo cid waliba ciddii kale ay wax tarto oo nafta la isku horo oo wixii la hayo la qaybsado taasuna waa aad iyo aad u muhiimta waa xil dowladda saaran in dadka loo abaabulo sidii wax la isu tari lahaa dowladduna ay hormuud ka noqoto naf iyo maalba ay dul dhigto maanta haddaynu garadag joogno si aad iyo aad u ballaaran baa madaxweynaha iyo waftigiisa u soo dhaweyseen sidii caadada idin ahayd weeye aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa waa ku mahadsan tihiin wixii waxtarah iyo wixii qorshaahina kulli waa dee guddidii abaaraha heer qaranna waa nala socotaa guddi heer gobolna way jirtaa qorshaha kala dambeeya baa wax lagu qabanaya iminka waxaa hadda diyaara 600 oo qoys raashinkoodii iyo cuntadoodii waxaa kaloo iyana diyaaro halkan yaalla 500 oo qoys oo gadar charity ayayna ku deeqdo iminka diyaaraha lagu wareejin doono waxaa kaloo diyaara biyo 50 booyadood iyo weliba raashin dheeraada iyo biyo dheeraada oo iyana iman doona biidni illaahi tacaala madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo oo ugu dambayntii munaasabadaasi ka hadlay ayaa shacabka reer gar adag uga mahad celiyey sida qiimaha leh ay u soo dhoweeyeen dadweynaha reer gar adag aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sida fiican aad noo soo dhaweyseen sida caadadeedin ahayd aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa idinka mahad celinaya aniga waftigay la socda baana magacooda ku hadlaya waxaan u soconnaa inaan u marayna dalka gobolka u maraynaa waxa inaanu xaaladaha abaaraha ka warhelno oo la soconno ilaahay waxaynu ka baryaynaa abaaraha inaga jabiyo ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu madan khayr qaba cirka inaga siiyo ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqayna siiyo marka annagu waanu dadaalaynaa waxaanu qaban karno waanu qabanaynaa waxaanu dawladda la kaashan karno waanu la kaashanaynaa waxaanu tari karno waanu taraynaa abaarta inaanu la dagaalanno iyo inaanu wax ka qabanno ilaah baynu la kaashanaynaa waxaanu qaban karnana waa qabanaynaa dadka iyaga iyo ummadda iyo shacbiga sida waajibi xilku nafarayo marka aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin sida fiicana noo soo dhaweyseen waxaana sidoo kale si diiran loogu soo dhoweeyey intii uu ku soo jiray jidka u dhexeeya gobollada Togdheer iyo Sanaaga tuulada ama magaalada Xayra kaasoo madaxweynaha Soomaaliland uu dhagax dhigay mashaariic horumarneed tuulada Xayra kana mid ahaayeen dugsi boardina oo loogu talagalay inay wax ku bartaan ubadka degan tuuladaasi iyo sidoo kale xarun caafimaad oo laga yeegleeli doono tuuladaasi madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka hadlay mashaariicdaas uu hirgeliyay dadaalka ummadda ay ku jirto inaan anaguna ka qayb galno oo waxaan dawladdu nahay waa wax xilkii mas'uuliyadda naloo saaray insha Allah ta'ala si waafiyan uga qayb gali doonaa waxaanu ka qaban karnaa waanu ka qabananaa waxaanu tari karnaa waanu taraynaa waxba inaga xumaan ma insha Allah ta'ala aan isku kalsoonaano aan wada jirro aan wada shaqeyno aan meel kasta wada jeedno waxaana sidoo kale iyaguna ka hadlay odayaasha iyo sidoo kale xildhibaanada ka soo jeeda deegaanadaasi waxaana madaxweynaha uga mahad celiyeen sida qiimaha leh ee uu uga qayb qaadanaya xaaladda abaaraha dalkiisa iyo dadkiisana u horumarinayo wasiirka wasaaradda hawlaha guudguryeynta iyo gaadiidka Soomaaliland mudane Cali Xasan Maxamed Cali Marreexan oo halkaasi ka hadlay hadaladiisa waxa kamid ahaa waa madaxweynuhu ku soo talagalay inuu soo maro inuu horumarkan iyo mashaariicdan wadaan idin kala qayb qaato waa wixii abaaraha iyo dhibaatada taagan ee dalka la qabtaa iyadana wixii laga qaban karo iyo wixii qorshaha loogu talagalay guddiga abaaraha imanaysa iyada qorsheynaysa heer gobol heer qaran heer degmo wixii la qorsheeyay kullu way iman doonaan hadii la ka dhigo
mashaariicda iminka soo qaadeen ee iskuulkani maantana hadda inaad ku ducayso dee ilaahay subxaanahu watacaala ducadaadana aqbalo meeshanna marka ay dhisanto si fiican u dhisanto hadday dhisanto waxa lagaga maarmaya carruurtii iska saaqidaysay ama burca iska qabanaysay ama reeraha guuraya la guuraysay la hayaamaysay baa lagaga ladnaanayaa ilaahayna waxaanu ka baryaynaa subxaana watacaala inuu iskuulka inoo dhammaystiro ayaanu ka baryaynaa oo uu najaxo communitigu isagaa dhisanaya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanya iyo wafdigii uu hogaaminayay ee maalmihii u dambeeyey socdaalka shaqo ku marayey gobollada bariga somalilan ayaa soo gaadhay caawa magaala madaxda gobolka togdheer ee burco waxaana madaxweynaha somalilan iyo wafdigiisa si diiran ugu soo dhoweeyey duleedka magaalada burco daraasaabka gobolka togdheer maayirka magaalada burco iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee gobolka togdheer saladiin cuqaal waxgarad siyaasiyiin dhallinyaro iyo dadweyne kale oo aad u tiro badan oo ka qayb qaadanayay soo dhoweynta diiran ee loo sameeyey wafdiga uu hogaaminayay madaxweynaha somalilan kuwaasoo maalmihii u dambeeyey socdaal xogwal noqosho xaaladda abaaraha ah ku maraya gobollada bariga somalilan madaxweynaha somalilan waxaa si diiran oo kale ugu soo dhoweeyey haween aad u tiro badan oo ka qayb qaadanayay soo dhoweynta wafdiga madaxweynaha somalilan intaasi kadib madaxweynaha somalilan iyo wafdigiisa waxaa loo soo gelbiyey gudaha qasriga madaxtooyada magaalada burco madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo lagu yaqaano dareen qaybsi iyo u damqashada dadkiisa kuwa jilicsan leh si uu xog dhammaystiran iyo xaqiiqo dhaba uga helo arrimaha abaaraha saamaynta ay ku yeelatay bulshada somalilan gaar ahaan gobollada bariga somalilan wuxuu madaxweynuhu 19 Noofembar isagii wafdi culus oo uu hogaaminayo uu ka soo kicitinay caasimadda jamhuuriyadda somalilan wafdigaasi wasiiro badan baa ku jiray marwada koowaad baa ku jirtay waxaa ku jira gudoomiyaha xisbiga xisbul xaakiga Muuse Biixi Cabdi madaxweynuhu ujeedada safarkiisa waxay ahayd inuu xaqiiqo dhaba saamaynta abaaruhu ku yeesheen gobollada bariga somalilan bulshada dad iyo dunyaba si uu helo axmed saki daar xasan iyo cabdilaahi cali sudi telefishinka qaranka somalilan magaalada burco